wiilkan waa wiil dhalinyaro oo sawir qaada ah. waxa la joogaa xilli subaxa, waxa uu isku diyaarinayaa shaqo maalmeedkiisa. waxa uu diyaarsaday quraacdiisa inta uusan bixin ka hor. waa uu soo baxay, waxa uuna soo aaday banaanka si uu u soo qaado sawirro qurux badan. waxa uu sawir ka qaadayaa goob uu arko inay qurux badan tahay. isagoo wata hawshiisii sawir qaadida, waxa uu arkaa lamaano qurux badan oo wadada maraya. waxa uuna ka qaadayaa sawir. wiilkani weli waxa uu ku guda jiraa hawshiisii sawir qaadida. markastana wuxuu sawir ka qaadayaa meesha uu arko inay ku habboon tahay inuu sawir ka qaato. gabadhan meesha taagan waxa uu jeclaystay inuu sawir ka qaado, hase ahaatee ninkeedii ayaa u yimi meeshana wuu ka tegay. iminka waxa uu soo gaadhay meelaha ay dadku ku nastaan, hase ahaatee weli wuxuu raadinayaa goobo qurux badan uu sawir ka qaado. waxa uu bilaabayaa inuu iminka qaado sawirro kale. waxa uu isha la raacayaa goobo qurux badan uu sawirro ka qaado. isagoo isha la raacaya goobo qurux badan uu sawirro ka qaado, waxa uu kaamarada ka dhex arkayaa gabadh keligeed meel fadhida. waxaana aad u soo jiidatay gabadha uu kaamarada ka dhex arkay. waxa uu ka qaaday sawir, kadibna gabadhii ayaa soo fiirisay, si degdega ayuuna kaamarada uga leexiyey. waxa uu ilqoodha ka fiirinayaa gabadha, isagoo ka cabsanaya inuu eego inanta. isla markiiba gabadhii ayaa meeshii ka istaagaysa, wayna ka tagtay. waxauna bilaabay inuu sii fiiriyo. haatan waa uu dhammeeyey shaqadii, waxaanu u laabanayaa gurigiisii. iminka waxa uu joogaa gurigiisii, waxa uu bilaabay inuu dib u eego sawirradii uu maanta soo qaaday. waxa uu arkayaa sawirkii uu ka qaaday gabadhii uu kula kulmay goobaha lagu nasto. gabadhan aad ayay u cajabisay, waa uuna ka helay. maanta waa maalin kale, waxa uu isku diyaarinayaa shaqo maalmeedkiisii. balse maanta way uga duwan tahay maalmihii kale ee soo mara. waxa uu u degdegayaa inuu mar kale soo arko gabadhii uu shalay la kulmay. waa uu soo orday, waxa uuna arkay gabadhii oo meeshii fadhida. waa uu ishagaajinayaa. waxa uu doonayaa inuu gabadha la hadlo, waa uuse ka cabsanayaa. ugu dambayn waa ay soo eegtay, kadibna kor ayuu ka salaamayaa. haatan waxa uu gudagelayaa sawir qaadistiisii. gabadha telefoon ayaa laga soo garaacayaa, si degdega ayayna meesha uga tegaysaa. aad ayuu uga xumaaday inay ka tagto mar kale isagoona la hadlin. balse nasiib wanaag, waxa ay meeshii ay fadhiday ku ilowday buug. waa uu ku farxay buugga, sababtoo ah waxa uu arkay fursaddii uu kula hadli lahaa gabadha. waxa uu meeshii ka soo qaaday buuggii, waxa uuna ka daba orday gabadhii si uu ugu geeyo buuggeeda. nasiib xumo waa uu waayay gabadhii.
waxa uu dib ugu laabanayaa gurigiisii waxauna bilaabay inuu ka fikiro gabadhii. waxa uu soo qaadayaa buugga waxaanu eegayaa waxyaabaha ku qoran. buugga waxa ku yaala sawir gacmeedyo. waxa uu aad uga helay sawirrada ku yaala buugga. isagoo marba beej eegaya waxa uu si kadisa uga dhex arkayaa buugga sawirkiisa oo sawir gacmeeda. iminka waa subax kale waxa uu noo soo baxay shaqo maalmeedkiisii. waxa uu soo aaday goobtii uu gabadha kula kulmay waxa uuna hore u soo qaaday buuggii ay gabadhu meesha uga tagtay. balse maanta gabadhii meesha mayna iman. waxa uu dhinacyadiisa ka eegayaa in ay soo socoto gabadhii. waxa uu ku sugayaa halkii ay fadhiisan jirtay. balse nasiib darro ma iman maanta dhan meesha. meeshiina wuu ka galbaday isagoonan arkin gabadhii. waa uu soo laabtay maalintii labaad iyada oo roob da'ayo mana imanin gabadhii meeshii. si la mida maantana maysan iman. waxa uu soo laabanayaa maalin saddexaad. weli gabadhii ma hayo. waxa uu joogaa maalintii afraad meeshii ayuuna ku sugayaa. weli ma hayo gabadhii waana maalintii afraad oo uu sugayo gabadha. iminka waxa la gaadhay saacaddii uu aadi lahaa gurigiisii. nasiib wanaag isagoo ka tegaya halkii waxa uu si kadisa ku arkayaa gabadhii oo soo socota. waxa uu buugga saarayaa kaabadii waa uuna ka cararayaa isagoo ka cabsanaya iyada. gabadha maanta way murugaysan tahay waayo waxaa ka lumay buuggeedii xasuus qorka. isla markiiba waxay aragtay buuggii oo saaran meeshii ay fadhiisan jirtay waa ayna ku faraxday. waxa ayna hubinaysaa inuu yahay buuggeedii. markii ay xaqiiqsatay inuu yahay buuggeedii aad ayay ugu faraxday. waxa ay bilaabaysaa in ay wax sawirto. waxayna si kadisa ku arkaysaa qoraallo ka soo baxaya buugga. waxa uga soo baxay qoraal waxaana ku qoran waxaad leedahay xirfad cajiiba. markii ay aragtay qoraalka waxa ay sii xuqaysaa beejka kale si ay u aragto qoraallo kale. waxaana u soo baxaya qoraal kale waxa uuna dhahayaa waa inaad dhoolla caddaysaa in badan. beejkii saddexaad ayay mar kale fiirinaysaa. waxaana ku qoran sababtoo ah waad qurux badan tahay. waxa ay bilaabaysaa in ay dhoolla caddayso. waxaana sawir ka qaadaya iyadoo dhoolla caddaynayso wiilkii sawir qaadaha ahaa. maanta way uga duwan tahay maalmihii kale. waa uuna soo fadhiistay waana wada hadlayaan. intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa sheekadii jacaylkii farshaxanka. haddii aad ka heshay like saar, faalladana qaybta hoose nagula wadaag. qaybo kale oo xiiso badanna waan idiin soo wadnaa. mahadsanidin.